muuqaal ku saabsan madaxweynihii hore ee dalka Falastiin Yaasir Carafaad. Halkani waa kanaalka dunida. Yaasir Carafaad waxa uu ahaa siyaasi Falastiiniya iyo aabbaha halganka Falastiiniyiinta. Waxa uu dhashay 14 Agoosto 1929. Waxa uu dhintay 11 Novembar 2004. magaciisa dhabta ahi waa Maxamed Cabdira'uuf Carafaad Xuseyni Al-Qudwa. waxa uu lagu naanaysi jiray Abu Cammaar. waxaa loo doortay inuu madaxweyne u noqdo maamulka Falastiiniyiinta sanadii 1996. waxa uu madax u noqday Fatah 1969. wuxuu ahaa qofkii saddexaad ee Fatah madax u noqda intii la aasaasay ee 1964. waxa uu ku guuleystay jaa'isadda Nobel oo la wada siiyay isaga iyo Isxaaq Rabin sanadii 1994. waxa uu ku dhashay magaalada Qaahira. waxa uu wax ku bartay Qaahira, xarunta Masar. waxa uu ku biiray ciidamada waddanka Masar kadib markii Yuhuudda ku soo duushay. wuxuu ka qayb galay ciidamadaasi dhalinyaronimadiisii. kontomeeyadii ayaa la aasaasay dhalinyartan. waxaa maanta loo yaqaan Fatah. sanadii 1968 ayuu wuxuu noqday afhayeenka rasmiga ah ee Fatah. sanadii 1969 ayaa loo doortay inuu noqdo hoggaanka fulinta ee Fatah. kadib sanadii 1973 ayaa loo magacaabaa hoggaanka guud ee ciidamada kacaanka Falastiiniyiinta. sanadii 1982 ayuu Carafaad dagaal ku qaaday Yuhuudda isaga oo markaa ka dagaalamayay waddanka Lubnaan gudihiisa. kadib dagaal baan Carafaad iyo saaxiibadiisii kaleba waxay kala baxeen Lubnaan oo ay mareen badda iyagoo kula baxay dhowr dowladood oo Carab ah. sanadii 1988 ayuu isugu akhriyay dambaalkii madaxbannaanida Falastiiniyiinta waxaana loo doortay madaxweynaha dowladda Falastiin. 13 Diseembar ayaa u jeediyay jaamacadda Quruumaha ka dhaxaysa oo ay shir ku lahayd magaalada Geneva kadib markii uu Mareykanku diiday in Carafaad uu yimaado dhulka Mareykankana ayaa shirka lagu qabtay.